waxqabadkiina asluubeedood wax u qabanaysaanna waa is ogtii inaan idin sheegna ha nagu kalifina asluubta anaa taliye ka ah aan la ii sheegin aan la igu marti qaadin saanaa jirta imow aan la idhihin cid kalaba aan wakiisha haddaan rabo ama anigaba aan tago ciidanka asluubta markii aan fiirino wasaaradda cadaaladda si political siyaasadeed afaaro siyaasadeed aan u hoos tagnaa iyagu taliye ciidanna ma aha taliye hoggaanana kama ah waxaan ogolnaa wixii aan keensannay inay isku sawiraan annagaa keenay ay dhahaan tabartaanba u fiirinayba isbitaalka Turkiga ee u gaarka ah ragga waxaa ka howlgala dhaqaatiir ajaanib ah kuwaas oo ku takhasusay daaweynta cudurrada ku dhaca taranka ragga iyo dhalmo la'aanta ragga dhakhtarka ayaa ka daaweyn doona cudurrada ku dhaca haniyaha iyo xanuun walba oo aad ka dareentid qanjirka borostatada ragga biyo baxa degdega ah hamiirida ragga iyo shahwada ragga oo daciifta soo booqo isbitaalka uu ku yaal xaafadda Taleex ama nagala soo xiriir nambarka shaashada ku qoran hadalkan maanta aan hadlayo oo taliye ciidanka asluubta oo hadlayo wuxuu ku wajahan yahay wasaaradda cadaaladda sida gaarka ah shirka 3 beri ka socdo oy ayadu qaban qaabisay barofesoorada iyo aqoon-yahanada iyo hay'adaha kale dawladda ay ugu yeertay oy ku magacawday ciidanka asluubta inuu ku wajahan yahay ciidanka asluubta dhismihiisa iyo xabsiyada dhismahooda dhismaha xabsiyada looga hadlaayo oo asluubtu qaban qaabisay oo hal qof waa asluubta aan loogu yeerin asluubta anaa taliye ka ah aan la ii sheegin aan la igu marti qaadin saanaa jirta imow aan la idhihin cid kalaba aan wakiisha haddaan rabo ama anigaba aan tago shirkaas waxaan u aragnaa qaladaan u aragnaa burburin hawl qaran baan u aragnaa waxaan leenahay ciidanka asluubta markii aan fiirino wasaaradda cadaaladda si political siyaasadeed afaaro siyaasadeed aan u hoos tagnaa iyagu taliye ciidanna ma aha taliye hoggaanana kama ah ciidanka asluubtana waa dhisan yahay si sharciga ku dhisan yahay kuwa hadda ee wasaaradda cadaaladda dhis la yidhi oon ognahay ma aha ciidamada kale ay la mid yihiin sharcigay ku dhisan yihiin kaasaa la raacaa ciidanka asluubta haddii meel laga raraayo oo meel kale la dejinayo madaxweynaha shuqul ku leh madaxweynaha ayaa shuqul ku leh taas meesha anaga gudbo wixii sharciyad ah oo wax ka bedel ana baarlamaanka ummaddaa shuqul ku leh taas xagga anaga gudbo cadaaladda waan wada shaqaynayna wanaagan ku wada shaqaynayna wanaagan ku wada shaqaynayna waxqabadkiina asluubeedood wax u qabanaysaanna waa is ogtii inaan idin sheegna ha nagu kalifina yaa ha nagu kalifina waxay asluubta rabta la qabta haddaadan la qaban karinna iska aamusa iska horkeen siyaasadeed weeye ciidanka iyo wasaaradda ha iska horkeenina dadka waxaas wada intaasaan leeyahay warka ma dheereynayo maanta wuu gaaban yahay maalin uu dheeraada ha gaarsiinina waa la shaqaynaa inaan hoos tagna waa aqoonsannahay waxay xaq noogu lahaayeen inaan la qabanaa ayaguse wixii annaga aan xaq ugu lahayn nalama qabtaan saasaan raalli kagana inay nala shaqeeyaan waxaan ogolnaa wixii aan keensannay inay isku sawiraan annagaa keenay ay dhahaan tabartaanba u fiirinayba tabartaanba u fiirinay isku sawiri maysaan aan nala gaarsiinin marka wixii marin xumaa hal iska dhaafo shirka asiga ah oo looga sheekeynayo xabsiyada dalka iyo dhismaha ciidanka asluubta waa qalad oonan annaga fadhinin oonan aniga fadhinin weliba koo yar oo ma garanaysa yah oo wasaaradda qabanqaabadeedii iyo hawsheedii iyo ay ku fushanayso gaara haddii ay tahay magaca asluubta iyo xabsiyada noo dhaafa wasaaradda cadaaladda xubnaheeda kale kaga sheekaysta
arrinka aan qabaa waa kan mana dheereynayo wabilaahi towfiiq